dadka ka soo qayb galay munaasabadda 15 guurada ka soo wareegtay aasaaskii shirkadda Sagal Jad waxaa ka mid ah Maxamed Haldoor oo isagu ka mid ah wariyaasha ama suxufiyiinta ku nool magaalada Hargeysa. Maxamed, bal horta marka hore waxaad nooga warantaa saad u arkaysaa xafladan. Axmedow, intaanan dareenkayga kaaga warramin saaxiib waan kuu mahadnaqayaa waanan ku salaamayaa. Sharaf bay tahay inaad waraysiga naga qabato. Dareenkaygu runtii waa mid farxadeed, waa mid aan farxadda kula qaybsanayo shirkaddayda Sagal Jad, shaqaalaheeda, maamulkeeda iyo mulkiilayaasheedaba. Runtii aniga barnaamijyo badan baan qabtaayo oo aan gobolada ku maro. Sagal Jad waa shirkadda koowaad ee Axmedow iga saacida barnaamijkaagaasi inuu qurux bato, inuu qaayo yeesho. runtii gudoomiyaha Sagal Jad Cabdi Yuusuf Aar abaal weyn baan u hayaa isaga iyo shaqaalihiisa kala duwan waanan u hambalyeeynaya dadkii maanta halkan lagu abaalmariyay 15 sano ayay jiraan waa qaangaad shirkad qaangaada sharaf bay tahay inaan xafladeeda imaado aad iyo aad bad mahadsantahay